waxaa si weyn looga diyaar garoobayaa degmada Bursaalix ee gobolka Mudug munaasabada barakeysan ee Ciidul Adha iyadoo dadweynaha ku dhaqan degmadani ay soo camireen shaariicada magaalada si ay caalamul islaam ula wadaagaan farxadda munaasabada nagu soo foolay Ciidul Adha. qaar ka mid ah suuqyada magaalada oo aanu booqanay ayaan kula kulanay dadka adeeganaya suuqyadaasi waxa ayna ka hadleen dareenkooda ku aadan u diyaar garowga ciidda iyo sida suuqyada looga adeeganayo. bismillaahi raxmaani raxiim waxaan hooyo u adeeganaysaa caruurteedii magacaygu waa Xamdi Maxamed Warsame waxaan ku soo dhaweynayaa bulshada gacamo furan iyo dhalinyarada aan wato iyo caruurta aan wuxuu iibinayaba farxad ayaan rabaa inaan la kulmiyo waxaan ka faa'iideysanayaa ciidda wanaagsan waxa weeye caruurtayda waxaan jecelahay si fiican inaan u iidsiiyo farxadoodana aan la qaybsado ayaan jecelahay maanta oo khamiisa waxaan u iibinayaa wax allaala waxa iyagu dalbadaan ama dookooda magacaygu waa Cabdullaahi Bashir Cabdisalaan kamida macallimiinta degmada Bursaalix wax ka dhiga maanta waan ka hadlaynaa ciid diyaar garowga ciidda maanta si wax si fiican dadku u diyaar garoobiyaan hadda meeshan aan joogno waa Carwo Iftin General Train Company oo aan ka iibsanayna dharkii ciidda iyo kabihii marka hadda waxaan rabnaa kabaha aan ku iidi lahayn baan raayaan dadino arwooyinka maanta waa ciid alxamdulillaah rabbil caalamiin waa ciideynaa arwadan carwo muhiim baa leeyahay Bursaalix ma u jeedaa qamiiskayga ka qaatay anigu hadda ma sha Allah aad baan ugu faraxsanahay salaamu alaykum waraxmatullaah ciidan waa soo dhaweynayna ma hadda maanta Ilaahay way sugnaatay haddaan nahay shacab weynaha ku nool degmada Bursaalix ma sha Allah waxaan soo dhaweynaynaa ciidda Carafo baan soo dhaweynaynaa waxaan anu ka adeeganayaa Carwo waa bari ma sha Allah adeegyo dhameystirana waan ka helay ciyaalka iyo aniga iyo xaaska iyo kulligay waa ka adeeganay Ilaahay baa mahad u sugnaatay ummadda reer Puntland waxaan ugu hambalyeeynaa ciideeda kale nabad iyo baraare ku gaara barwaaqo iyo ladnaan ku gaara maalinta farxadda lehna waa soo dhaweynaynaa SBC si gaar ah u salaamayaa sida ay dadweynaha ugu adeegaysay iyo maaragtay dadaalkeeda. bismillaahi rahmaani rahiim assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh waxaan salaamayaa telefishinka SBC waxaan joognaa maanta carwo ka mid carwooyinka degmada Bursaalix waxa lagu guda jiraa adeegashada ciidaas oo ka dhiman tahay laba bari dadku waxa laga dareemayaa xamaasad iyo waxa dadku inay adeeganayaan degmada Bursaalix oo ay ka adeeganayaan caruurtii iyo dadkii waaweynaa iyo dhammaan ay adeeganayaan oo carwooyinka iyo dhammaan meelaha wax lagu godo ay mashquul yihiin magacaygu waa Maxamed Cabdullaahi Axmed oo ku magac dheer Geedi jooga degmada Bursaalix maanta shucuurta ku cabiraya marka koowaad waxaan salaamayaa bahas xaafadda telefishinka SBC nagala joogo maanta waxaan la yiraahdo sidaan wada socono waxaan nooga dhiman ciidii waqti kooban shucuurta ciidda haddaan ka hadlo runtii si fiican baa loo diyaar garoobayaa dadku khaasatan nafsi haddaan ka warbixiyo maanta waxaan meeshaan inaan ka adeegto dhar ka qaato anoo waxaan leeyahay wiishaas u jeedaan dharka u jeedaan baa inaan dhar ka baxo carwada maanta saasaan u soo galay carwada Abu Muuse bismillaah waxa weeye waxaan halkaan joognaa carwooyinka ka mid ah Bursaalix carwooyinkeeda maanta waa maalintii dadku farxadda lahayd oo ciidda iyo dharkeeda maartay caruuraha iyo loo iidsiinayay hadda halkaan waxa weeye waxaan ugu iidsiinaynaa caruurta magaalada dhan aad baa arintaas maartay dadaal weyn baa ka socda oo ciidda ah marka ma sha Allah arinta farxad weyn bay leedahay waad u jeedaan oo dharkii baan hadda gadaynaa. bismillaahi raxmaani raxiim ilaahay ciidana gaarsiiyay baan uga mahadnaqaynaa waa ciideynaa dharkii baan gadanaynaa carwo waa bari baan hadda ku jirnaa dharkii oo dhan baan ka gadanaynaa haddii alla idmo ciid wanaagsan waxaan soo dhaweynaynaa maalintii ciidda halkaan magaceedu waxa la yiraahdaa Bulsho Taylor dharka waxaan ku talnaa rag iyo dumar waxayna ku talaa degmada Bursaalix waxaan ku mashquulsanahay maalmahan dharka ciidda oo rag iyo dumarba dadka meesha fadhiyana hadda waxay nooga fadhiyaan inaan u shaqeyno. bismillaahi raxmaani raxiim ana magacaygu yahay Aadan Cabdullaahi waxaan la socdaa hooyaday waa ciidiya dharkaygii waan carwada u soo doontay hambalyaan leeyahay hambalyo Axmed Daahir Sahal Axmed Shaaciro SBC degmada Bursaalix.